shan qodob oo lagu garto ninka ku jecel ee sida dhabta ah ku jecel. Qodobka koowaad, ninka ku jecel waa nin qiime ku haya oo qiimo weyn ayaad ugu fadhidaa. qiimahaas isaga ah isma dhimo. hadday xaaladdu qaraadhahay, hadday xaaladdu macaan tahay, qiimahaas isaga ah marnaba hoostiisa kama dego, waayo waa nin si dhab ah kuu jecel. qodobka labaad, ninka ku jeceli waa nin ku ixtiraama. ixtiraan ayuu ku siiyaa mar kasta. mar kastoo xaaladdu ay macaan tahay mooye, xitaa xaaladdu hadday qaraaraato oo meeshii dhiida ay gaadho la oran jiray, waa nin ixtiraam kuu haya. kuguma digto yacni nin ahaantiisa kuma tuso. mar kasta ixtiraam ayuu kuu hayaa. kaasi waa qodobkii labaad. qodobka saddexaad, ninka ku jeceli waa nin naxariis badan ayuu kugula dhaqmayaa. wuu ku naxariisanayaa marka aad jilicsan tahay, marka aad adag tahay, haddii ay wax kugu taagan yihiin, haddaad wax ka fakarayso. adduun baa la joogaa, xaaladuhu way isbedbedelaan. mar kasta waa nin naxariis ballaadhan ku siiya, oon dhib kuu ogolayn, oo mar kasta isagu jecel inuu wax kasta oo ku soo wajaha uu isagu dhabarka u rito si adiga uu naxariis kuu siiyo. okay, qodobka afraad, ninka ku jeceli waa nin kugu faanaya. haddii noloshu markay private tahay, markay publica tahay, haddii adaad maqan tahay, haddii la wada joogo, yacni gaal iyo islaam qofkii ka soo horbaxaba wuxuu dhahayaa maxaaskayga, ma boqoldhaan, ma kundhaan, ya magacyo ayuu ku waxaynayaa. waayo waa nin ku jecel oo si dhaba kuu jecel. markaas wuu kugu faanayaa. qodobka shanaad ee aan uga baxayo, ninka ku jeceli mar kasta xaaladaada ayuu ka warhayaa. day in day out. nin iska maqan 5 cisho ma ahan, wuxuu ku maqan yaadan waru hayn. nin ma aragtay 10 cisho iska maqan oo ma aragtay waxaas jacayl lama yiraahdo. ninka ku jecel waa nin mar kasta xaaladaadu waxa ay ku sugan tahay jecel inuu ka warhayo. codkaaga inuu maqlo, sheekadaada inuu ma aragtay uu maqlo, aragtidaada inuu maqlo. maalintii laga yaabee 5 jeer ayuu ku soo wacayaa. maalintii laga yaabee inuu mar shaqada kuugu yimaado, mar ma aragtay video kaa soo waco. yacni waa nin mar kasta aragtidaada iyo codkaaga jecel, iyo xaaladaadu waxa ay ku sugan tahay every hour. waa ninka ku jecel xaqiiqatan. marka gabdho indhaha kala fura. qodobadaasaan sheegay haddii ninkaagu uu leeyahay, ninkaas isaga ah waa lama helaan. gacanta ku dheg, ilaasho. intaas wanaaga uu ku tusay iyo ka badanna kula dhaqan insha allahu tacaala.